bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. marka hore waxaan ku mahadinaa allah raxmaan, marka xiga waxaan ugu salamaa dhammaantiin salaanta islaamka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. galab wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed. si gaara waxaan rabaa maanta inaan uga hadlo safarka uu madaxweynaha dowladda uu ku tegay soomaaliya uu ku tegay beledweyn. dowladda soomaaliya horta waxaa u naqaanaa inay tahay dowladda igu sabir. runtii waa arrin wanaagsan in shacabkii dhibaatada ay ku dhacday in loo tago lasoo booqdo, wixii la tari karana loo taro. laakiin waxaa ayaan daro ah in muxuu ahay markasta ay musiibo dhacdo in muxuu ahayey dadka inta loo tago laysku sabiro, waayeel saqiir ciroole intaba la yidhaahdo meeshaan tagnay activity ma noqdo, muxuu ahayey c v na ma noqdo. marka backgroundiga meeshaas laga raadinayo runtii waxaan aaminsanahay inuu yahay mid qaldan. sidoo kale waxaan rabnaa masiibadan hadda beledweyn ka taagan waa mid soo laalaabatay. haddii ay jirto in muxuu caqli saliim ah iyo wadaninimo dowladnimo, ehelnimo daacadnimo soomaalinimo, waxaan rajeynayay mar hore in arrinkaa lasoo afjari karay. laakiin xiqdiga iyo muxuu ahay xasidnimada iyo mataqaanaa fikir la-aanta haysata madaxda hadda dalka joogta inay u sabab tahay inay dayacmaan shacabka soomaaliyeed. runtii waxaan ilaahay uga baryaynaa intii meeshaas ku waxyeelooday in ilaahay bedel kheyr qaba siiyo, intii dhimatay ilaahay u naxariisto, intii ku gurya beeshayna ilaahay mataqaanaa uu siiyo nasriga kheyr badan wixii dhaafay. madaxda waxaa laga rabaa inay joojiyaan barnaamijkan igu sabirta ah. meesha igu sabir macnaheedu waxa uu soo kordhinaya ma laha. ninka sabiro rabo gurihiisa ha ku galgalo iyo xafiisyadiisa meelahaas ha ku filan. laakiin shacabku markay dhibaataysan yihiin yaan lagu dul tumanin oo muxuu ahaaye barnaamijkan lagu dul wada laga joojiyo. dowladda anagoo og tabarta ay leedahay, miisaaniyaddeeda meesha ay gaarsiisatay, ayaa haddana runtii $500,000 inay ku deeqdo oo ay tiraahdo musiibadaasaan kaga qayb qaadanaynaa. runtii waa ayaan darro weyn. maxaa yeelay qarashaad intaas ka badan waxay ku bixiyaan aan ognahay, xog ogaal aan u nahay, burburinta iyo mataqaanaa iyo ku dhisidda maamulo ay ayaga rabaan, iyo waxyaabo kaloon munaasab u ahayn shacabka soomaaliyeed. shacabka waxaa u dan ah in laga shaqeeyo danahooga ay ugu horeeyaan caafimaadka, waxbarashada, amniga iyo mataqaanaa iyo waxyaabaha kale oo resourciga biniaadanka uu aadka u tamaaninayo inuu helo. beledweyn musiibo xoog lahaa ka jirto. dadki way guryo beeleen, way hanti beeleen, nafaf badanaa la waayey, ilaa hadda meel lagu nagaada la laayahay, biyihii way socdaan. dowladda $500,000 wax macnaha ay ku fadhido ma lahan, waxay qabatana ma lahan. waxaan ugu baaqaynaa inay qasnada dowladda ay furaan shuruud la-aan, dadkaasna wax alla waxay tabanayaan loo qabto, biyahaas laga xiro, biyo xireenka si fiican loo adkeeyo. saan dareemayno hadda webigaasu waa webi gaboobay oo u baahan in naftirkiisu dib u dayactir lagu sameeyo. qalabka lagu qodi lahaa wadanka wuu yaalaa, waxaan la haynina si deg dega waa loo keeni karaa. marka waxaan codsanaynaa arrintaasu mar dambe inaysan dib ugu soo laaban. maxaa yeelay soomaalidu waxay tiraahdaa laxdu meeshaas degtaa lagu gowracaa. reer beledweyn hadday aamuseen ay dowladda macnaha ay u sacbiyeen, macnaheedu ma ahaan in muxuu ahay lagu fiirsado dhibaatada iyo caqdarada. saan ognahay bilo ka hor waxaa dhacday baraabe in laga dhisay buundo lagu bixiyey $300 iyo wamaazaada oo dollar. dabcan kuley waa dhul soomaaliyeed, laakiin waxaa ka mudan maanta meesha ay masiibada ka dhacday. buundooyinkii way go-een, meel la mara ma lahan, xaafadihii isku socod ma laha, ninkii tilaabo qaada biyaha la tegaayo. marka dowladduna ma aha inay barnaamijkeeda ay kusoo koobto igu sabir iyo waxaan hadda munaasab ahayn. waxaan ka codsanaynaa madaxda inay qaadaan tilaabo midda hadda ay qaadeen ka wanaagsan, ka xoog badan, ka dhiirigelin badan. shacabku waa isku tashteen, intay qaban karaan way qabteen. ganacsatada gobolka banaadir oo keliya ayaan ogaa horaantii musiibada inay muxuu ahay iska soo arooriyeen qaaraan gaaraya $1 milyan. gobolada dalkana lacago fara badan ayaa ka imaaday. marka waxaan codsanaynaa arintaasu inay ka fogaato igu sabir iyo wax la mid ah.
dadkaas waxqabad degdeg ah ay u baahan yihiin. Dowladdu waa inay isgarab istaagtaa, shacabka ay dowladdu u tahay waa ayaga, dadka ay beri difaaci lahayd waa ayaga, dadka ayaga difaacay waa ayaga. Marka dowladdu hunguri xumadeeda iyo hanqaltaaga siyaasadeed ee qaabka daran ee ku jira dib ha u dhigato, dib ha u liqdo. Qof walba wixii ilaahay u calfo ayuu cunayaa. Kaliya aan lagu fikirin next election sidaan kusoo noqonaa. Hadduu ilaahay kuu qadaro waa soo noqone. Shalay adiga meeshan positionkan adiga muxuu ahaay dhaxal aabaha ma ahayn, cid meesha kuu dhigtay oo kaagala sii dardaarantay ma jirin. ilaahay ha kuu qadaray, qadar ilaahay ha ku heshay. Haddana haddii ilaahay kuu calfo waad heli doontaa, laakiin waxaa muhiim ah in la badbaadiyo shacabka Soomaaliyeed. Musiibadan oo kale waxay qarka u saaran tahay inay ku dhafato isla magaalada Jowhar. Naftarkeeda aan ilaa hadda aan loo helin wax maxaa ahaay ka gaashaamasha iyo isku tashi ah. Marka runtii waxaan leeyahay arrintaas feejignaan dheeri ayay u baahan tahay. Fadlan reer igu sabir, joojiya igu sabirta, la yimaada wax qabad dhab ah. Sidoo kale waxaan rabaa in halkan ka bogaadiyo madaxweynaha maamulka Jubbaland oo runtii markii habeenkii ugu horeysay ee musiibada agtooda taabatay si degdeg ah ugu gurmaday, isla markii xiray biyaha, gurmad degdeg ah u fidiyay shacabka reer Jubbaland. Runtii maamulka iyo madaxdana way ku amaanan yihiin. Dowladda federaalkuna waxaan leenahay saa isu dhaama, waad fadhisaan, waa hurdaan, hurdada ka kaca, soo toosa insha Allah. Waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.